arrinta Sundus YouTube-keeda oo ilaa hadda ka maqan yahay aan rabaa inaan hadda waxa waaye soo galo maadaama shalay aan dhahay kuma jiri laakiin markaan arkay dulmiga lagu hayo gabadha miskiinta iyo mataqaanaa gafka iyo meelka dhaxa loo geystay waxa waaye xoolaheedii waxa waaye lagu jajeesayo oo dadka lagu soo wareejiyay saxdaar cali soo saaxiibkii waaye nin aad saaxiibna waaye laakiin arrintan hadda uu ku socdo majarteen aan inuu ku xumaysi majarteen uu rabaa inuu ku baashaalo taasna waxa waaye majarteen uu xuntamayso 1 milyan iska dhaafay xitaa haduu 1 milyan ata majarteen waxaas waxa uma arkaan al majarteeni dad laan dheeraal awaaye dad gob awaaye taqaana gabadhan 1 milyan ma loo inay gaarsiinayaan lacagna waa qabiilka kaliya ugu cimaamada badan waaye gabdhoodii maxal ragooda dad TikTok markay noqoto dadka ugu cimaamada badan waxa waaye intaas lacag ku bixiyeen way marka Sundusne gabar dhalinyarada oo reer qalaf way waxa waaye taqaana 15 milyan 20 milyan ay dul saarayaan taqaana horta Soomaaliya si Soomaaliya raba YouTube uma oynayso haday haduu haystaan haduu rabo waa confirm 100% laakiin waxaan rabaa majarteenka oo dad raba in la geliyo oo rabo saxaaf in lagu diro saxaaf arintan waa ku qaldiya hadda idin sheega hadda waxaan rabaa markaan idin sheego wadadii loo mari lahaa oo mataqaana lagu dacweey lahaa waxa waaye ninkan hooyadiis waaye adduunka saxaaf hooyadiis u jecel yahay maamadan magaceeda in sheeg doona Sundusna waa ogtahay waa loo qoray meeshay degan tahay maamadan iyo wadada iyo jidka iyo kulli macna guriga marka Sundus dad odayaal ama dad waaweyn wadanaysa maamadan u tagaysa maamadan ugu dacwoonaysa waxay leedahay wiilkaas dhibkaas uu igeystay ana idin tusana ku dhahay saxaab in meel la saaro taas waxa waa confirm way marka dulqaadka badiyo waxay noo suga dacwada maamada galiso hadii la yiraahdo maamadan yaa way maamadan waxa la magaceeda Zahra Hussein Salim waxa way hooyada dhashay saxaaf taqaana adduunka hooyadiis uu jecel yahay waligeed social media intuu qara kale waa qari adduunkan waxa way waa dhuntay intuu qabiilo kale wax kale sheeganay asoo markaas walaalihiis iyo eelkiisa macnaha qarsanay laakiin waa la hayaa walaalihiisna waa tan soo dhigay walaalihiis qaara shana joogto hadda magaalada Muqdisho taqaana afar gabdhood iyo wiil waxa joogto lix joogto afar gabdhood iyo laba wiil joogto Muqdisho taqaana wiilasha asaa weyn maxamed weyn magaciisa maxamed Allah saxaaf wiilasha asaa weyn hooyadiis waa tan Zahro waxa way adduunka hooyadiis u jecel yahay wax kasto hooyadiis u sameeyaa marka amarkeena waa qaata waxa way Sundus waa ogtahay maamada had meesha degan tahay waa loo qoray taqaana waxa way Sundus maamada marka u tagto runta u sheegaysa waxa leedahay maamoy aniga wiilkay waa soo shaqeynay waxa way Malaysia wada joogi jirnay maamoy wiilka dhibkaan u geystay umada dhan oo taqaana waxa way horteeda oo taqaana aniga waxaan ugu sameeyay adiga waxba ha qarin oo inta waxa ku dardarabto maamadan waa maamo aad iyo aad dumarku jecel way wallahi billahi taala sida ay sheegaa mugtahay maamadan waa maamo xaafada aad loo yaqaan dumarka u dooda waxaan ku dhahay gar badan ay gashaa taa gabdho badan oo hataa nimankooda isku dhaceen gartooda gashay maamo waxa way aad iyo aad dulmi u nacib way wallahi billahi taala waana maamo kulul way macnaha oo ilmaheeda aad iyo aad u adag way saxaafan ku dhaayada ka adag maalin weyd markii daxdal nuurshay markii oo mataqaana oo muxuu ahaa oo arintiisa oo wallahi billahi way soo waxday markaas ayadoo qaylinayso waxay tiri wariyaa anima kugu soo koriyay ha adduunya maanta wixii soo joogto maxaa ii keentay in mataqaana waxa way maam Zahra wiilkeeda mataqaana waxa way $400 loo haystaa see aniga waan ma tugnin ma kugu soo koriyay waro yani oo abaadkiisa baxay wallahi billahi buu ku sheegay saxaab hooyo wali nabsana tan hadda loogu daraa ha gabadha miskiinta walaashiisa oo Soomaalida la ah oo aan dulminin oo YouTube-keeda oo mataqaana kala wareey والله بلا طلع وش صحاب الصحة إنها بدي شيء مركز سندس ماشي ومري دونتا سندس تمدق يكون جرتا معمد أوتك أدرس كده واحد هو الوصو قري أوتك معمد مدح كسر شمي عندك كسر شمي ما يدب كان جرب ده والله بلا طلع هدو صحاف كبري وايو أنا أنت معود في سنة مرقاتيك نقدونا هدو صحاف أنتو كسوع كبري وايو وكرالي جري وايو أنا إسلامي هرت مجرتيرو معمد إنك هو يدي صار نور هو يدي صارت لو دعونا نمبر 1 نمبر 2 walaalkiis waa jooga askari waa Hussein Allah asoo kiiriyay wuxuu kiiriyay saasro kiiriyay wuxuu jooga wallahi bilaa rabbi sheegay asagana waxa waa jooga aabiisa jooga saddex gabdhood xamar ugu qabaa joogto warniga nin dhuumanay ma yartan caas ka dhigo erga Sundus sanka kor u taag adoo oonaysi ku arkin waxa YouTube loo oonaya ku arkin 1 milyan wuxuu yahay malan 2 milyan lagu gaarsiina taas gooni way tan kale maamada kaaga soo qaadayso taas confirm way ka soo xid wadadana marayna insha Allah taala marka isku waxaan ka codsanaa marka isku sawir ha sawir qurux soo gal maam Zahra adiga soo gal maxay yeelay dadka badan caanka hooyooyinkooda
kuwa noolaan sheegana mogtahay waa joogaan meeqa caani hooyinkooda maanta isku soo sawira hooyo maxaa ka soo shumi maama zaari heen magaal beezani waay wallahi bila ina bay sheegin sundus inaysa ku diideen anaa hobaan ku dhahay adreeskeeda waa haysataa guriga waa haysataa weli xaafadda iyo guriga ku dhegan cidda ku dhegan hataa magacooda wax dhan waa haysataa inta kama sheegeen maxaa yeelay dadkan Soomaaliya iska dhibadiin waa iska aadaan haddii rabaan maamadana iska soo salaam marka maamada xaafadeeda u qarinaynaa sundus basaan og waxaan rabnaa sundus rabnaa inay kaga dacwooto hooyadiis. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.